qurxamo libaaxii dadku gacashanaya garbodkay cayaaraan shabeelkii wax goyn. bismillaahi rahmaani rahiim. kulan wacan dhageystayaal, waxaan ahay Zakariya Xasan Maxamed. waxaana ku soo dhawaataan barnaamijka tusmada sharciga. toddobaadka iyo barnaamijka tusmada sharciga waxaanu ku eegaynaa xuquuqda muwaadinka iyo waajibaadkiisa. waxa aynu ku falanqeynaynaa arrimo ay ka mid yihiin dastuurka Soomaaliya cutubkiisa 2 oo ka hadlaya xuquuqda iyo waajibaadka muwaadinka Soomaaliyeed iyo sida loo ilaalin karo xuquuqda muwaadiniinta. haddaba dhageystay ha moogaan in aad ku soo birto falanqeynta, soona dirto su'aalaha iyo aragti wixii kaaga baxa mowduuca adiga oo ku soo hagaajinaya nambarka idaacadda oo ah 06 6224 tusmada sharciga waa barnaamij awoodsiin iyo sahanba u ah in uu ka saaciido bahda cilmiga iyo sharciga in ay fahmaan si loo helo ummad cadaaladda ay sinaantu ay u tahay mudnaanta nolosha. maanta barnaamijka waxaa martiinoogu ah abukaate waa aqoon-yahan Cabdiqaadir Sheelilah. ciwaankaaynu ka doodayna waa xuquuqda muwaadinka iyo waajibaadkiisa. amugaanin adigna aad kasoo qayb gasho oo aad kasoo dhiibato su-aal iyo aragti wixii kaaga baxa ciwaankan adiga oo naga soo wacaya nambarka idaacadda oo ah 06 su'aalo ma ka qabtaa dhanka sharciga iyo cadaaladda? dhib ma kala kulanta helitaanka cadaalad adigoo sharciga maray? ma jeclaan lahayd in lagaa caawiyo ama lagala taliyo? haddii ay jawaabtu tahay haa, fadlan nagala soo xiriir nambarkan gaaban 2233 oo bilaash ah, kaasoo diyaar kuugu ah xarunta kaalmo sharciyeedka ee jaamacadda Muqdisho. waa tahay dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka tusmada sharciga. waxaa lagu magacaabo muwaadin waxa ay noqon kartaa marka qofku uu helo xuquuqaadka asaasiga ah, taas oo laftigeeda ka ratibmaysa in isagana ay xaggiisa ama dhankiisa ay ka fuusho waajibaad laga rabo inuu ka soo baxo. marka laga yimaado xuquuqaadka nolosha ee ah qofku inuu xaq u leeyahay inuu noolaado, waxaa ka ratibmaya qofku in deegaanka ku leeyahay ama dawladda uu muwaadinka u yahay ama dalka uu heeb ahaan kasoo jeedo uu ku yeesho xuquuqaad dheeraada oo ku saabsan maalinta uu dhasho ilaa maanta uu ka geeriyeenayo. taas cagsigeedana ama taas badiilkeedana waxaa noqonaysaa in muwaadinka ay korto waajibaad isna looga baahan yahay in uu fuliyo si ay u dhammaystiranto waxa uu qofku noqonayo muwaadin ama sharciga muwaadinnimada. si haddaba aynu faaqidno ama aynu in badan u fahamno ciwaankaas, waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo ustaad Cabdiqaadir Sheelilah si uu faahfaahin kooban u dultaago ama isdultaag kooban ugu sameeyo ciwaankeena xuquuqda muwaadinka iyo waajibaadkiisa. ustaadii soo dhawow kor idaacadda Himilo. waa mahadsantiin. waa runtii waa ciwaan ay tahay in badan laga hadlo, waqti badanna la siiyo xuquuqda iyo waajibaadka muwaadinka. muwaadiniinta ayaa asal u ah dowladnimada, ayagaana dowladooda samaysta. taas waxay asal u tahay oo asalka dowladnimadu waa in la ilaaliyo xuquuqda muwaadiniintu ay leeyihiin. si marka xuquuqdooda iyo ay u ilaashanto, waxay u baahan yihiin awooddii hawshaasi u qaban lahayd oo xuquuqdooda u ilaalin lahayd. sidaasay marka u samaystaan dowladda. marka dowladda markii la sameeyana shaqada laga rabo waxay tahay in xuquuqdaas ay ilaaliso, ayadu inay gacanta dowladda laga ilaaliyo xuquuqdaasi in ay ku tumato dowladdii cafwan, iyo in muwaadiniinta dhexdooda la kala ilaaliyo si xuquuqdii ay u noqoto mid dhowrsan. mabaadi'daas lagu dhisayo xuquuqdana dastuurka ay ku wada yaalaan dhammaantood. sababta dastuurka loogu sameynayana oo xuquuqda loogu qorayo cutubka koowaad markii laga soo tago mabaadi'da dawladda iyo lagu qeexo dastuur kasta, waxaa ku xiga xuquuqda iyo waajibaadka lagu bilaabaa. sababta xuquuqda iyo waajibaadka loogu bilaabayana waa in la siiyo mudnaanta ugu sarreysa oo xuquuqdaasi ay yeelanayso. waxaynu ognahay in xeerarka dowladuhu ay dhigtaan waxa ugu sarreeya xeerka ugu sarreeya, yani xeerarka la dejiyay dowladu leedahay xeerka ugu sarreeya waa dastuur. marka maadaama uu yahay xeerka ugu sarreeyay ayaa xuquuqdana lagu qoraa.
taa waxay ka dhigan tahay xuquuqda xeerka ugu sarreeyay baa qeexay dhammaan xeerarka kale oo dhami waa inay u hoggaansamaan xuquuqdaas dhowristoodana ay ku dadaalaan taas markii laga soo gudbo oo xuquuqdani waxa halkaasi loo geeyay iyo ahmiyadda ay leedahay laga soo tagay haddii xataa halkan aan lagu qorin oo aysan dastuurka ku qornayn xuquuqda muwaadinka uu leeyahay way ilaashan tahay oo maxaa yeelay xuquuqdani waa xuquuq bani aadamka la socota xuquuq bani aadamka markuu dhashaba uu yeelanayo waaye ma u baahno in lagu qoro waa ilaalinta kaliya wax meesha lagu qoray haddaan lagu qorin hataa xuquuqdaasi uu leeyahay oo wuu dhashaa dastuurka federaalka Soomaaliya ee ku meel gaarka ah 2012 la ansixiyay cutubkiisa qaybta labaad buu kaga hadlayaa xuquuqda asaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka taa marka cutubku ballaaran yahay waxaan ka soo koobaynaa madaxyada ugu sareeya ee uu kaga hadlay xuquuqdaas marka xuquuqda la ilaalinayo mabaadi ayaa asal ah mabaadidaas iyadoo la dhowrayo ayaa xuquuqdaasna la ilaalinayaa dastuurka qodobka 10aad wuxuu leeyahay karaamada aadanaha aan laba mabda ayuu asal uga dhigay xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed si loo ilaaliyo labadaas mabda baa laga duulayaa iyadoo labadaas mabda laga duulayo ayaa xuquuqdan la ilaalinayaa labadaas mabda waa labada mabda ay ka wada dhalanayaan ay ka wada farcamayaan xuquuqda oo dhan ay ka farcamayaan mabda ugu horeeyo waa karaamada aadanaha yani in la ilaaliyo karaamada aadanaha ayaa waxay tahay xaqa ugu xoog badan oo bani aadam la siiyo bani aadamku qof karaamaysan ilaahay baa karaameeyay marka karaamadiisaas wax kasta oo liidaya waxay noqonaysaa xuquuqdiisii meel looga dhacay ayay noqonaysaa mabda labaad wuxuu noqonayaa sinaanta ayuu noqonayaa waxaa la rabaa dhammaan muwaadiniintu iyo dadka kale muwaadiniinta ahayna ku nool dawladdaasi inay yihiin dad siman oo u siman xuquuqda waxaa la diidayaa in dadka qaarkiisna xuquuq la siiyo kuwa qaarkoodna loo diido marka si aysan taa u dhicin ayaa waxaa loo sameeyaa mabda'aas in la ilaaliyo sinaanta marka sinaantaasi waxaa lagu xadgudbayaa oo ay takoorid noqonaysaa waa sida qodobka 11aad uu leeyahay takoorid waxay noqonaysaa mar kasta oo lagu sameeyo is-hortaag ama ciriiri la geliyo xaq uu qof lahaa yani xaq aad lahayd haddii laga hor istaago inaad xaqaasi aad yeelato oo aad ku dhaqanto oo aad xaqaadii aad mulkiiso haddii laga hor istaago waxay ka dhigan tahay takoor haddii xaqaad sameyn lahayd lagu diido lagu ciriiriyana waxay noqonaysaa takoor qodobka 11aad ayaa sinaantaasi ka hadlaya iyadoo marka sinaanta iyo karaamada la ilaalinayo ayaa xuquuqda dambe aan sheegayno dhan ay tahay in la dhowraa xuquuqda dambe waxay u kala qaybinaynaa hadday noo suurta gasho dhowr qaybood xuquuq asaasi ah oo ay tahay dawladdu in dadka ay u dayso oo aysan faragelinin oo ay xornimadoodu ay haystaan xuquuq ay tahay oo laga rabo dawladdu inay gacanta ka ceshato iyo xuquuq la rabo dawladdu inay soo farageliso oo ay dhaliso yani iyo qaybta saddexaad oo waajibaadka saddexdaas qaybood ayaan u qaybinaynaa kuwan aan ku bilaabayno waa xuquuqda asaasiga ah xuquuqdan asaasiga waxaa laga rabaa dawladdu inay gacanta kala baxdo oo aysan soo faragashanin oo ay u dayso dadku inay xaqaas ay helaan waxaa ugu horeeya xaqa nolosha qodobka 13aad weeyaan xaqa nolosha yani qof kasta wuxuu xaq u leeyahay nolol yani qofka waa inuu marka leeyahay qofka wuxuu xaq u leeyahay inuu nolol buu xaq u leeyahay waxaa la diidayaa wax kasta oo noloshiisaas khatar u keeni kara oo dulmi ah in laga ilaaliyo marka khatarta ugu weyn ee naftaada aad ku weyn karto waa dil weeyaan marka dilkaasi sharci darrada ah oo qofkaasi dulmiga loo dilayo waxaa la rabaa dawladdu inay ka ilaaliso oo dadkii wax dilayay mooryaantii kuwa wax dhacay dambiilayaashii waxaas oo dhan in laga ilaaliyo dadka ay dad safety dareemaya oo nabad dareemaya inay helaan ayaa asal u ah marka waa qofku waa fitradii weeyaan wuxuu dhalanayaa ilaahay qofkaas asagoo qof nadiif ah oo dambi lahayn oo waxba gelin waa inuu noolaado marka ilaa dee nolol abadi ma jirayso qofka waqti buu leeyahay marka waqtigiisaas inuu iska sugto oo markaas aanan
dil xad aan ahayn aan lagu fulmin. Qodobka 14aad waxaa weeyaan adoonsi iyo midiidin iyo ku shaqaysi qasaba, yani qofka waxaa la mamnuucayaa in dadka la adoonsadaa la mamnuucayaa, yani adoonsiga lama ogolo dad in inta la qabsado xoog lagu qabsado xoog lagu shaqaysto. waxaa laga yaabaa in Soomaaliya hadda aysan aad uga jirin. laakiin mutay laborka kala isticmaal al-adbaan xadaan runta la adoons runtan shaqooyinka shaqeeyaan naftigooda xal ilaahay ka hormaanaysa xuquuqdaadana. ayadan uu kani doona markuu carruurta ka hadlaya ayuu si gaar ah u sii taaban doonaa carruurta si guddadaan carruur ahayn xataa oo waaweyn inta meel la soo qabsado shaqo aysan raalli u ahayn lagu qasbo ayuu ujeedadu ay tahay. hadda adoonsi guud oo dad la adoonsanayo iska yaraaday waa ii hore u jiri jiray, laakiin haddii dad isku dayaan inay soo xoojiyaan ay bilaabaan adoonsi sharcigu ma ogolo. marka adoonsiga waa la mamnuucay oo dastuurku ma ogolo iyo diinteenu ma ogolo. midiidinta iyo ku shaqaysiga qasabka ahna ayaguna lama ogolo, yani dad inta la soo kaxeeyo xoog beer loogu farto warshado lagaga shaqaysto hadda inaysan ka jirin laga yaabo. كل Soomaaliya hadda si guud uga jirto meelaha qaarkood adduunka laga sheegaa. qodobka 15aad wuxuu ka hadlayaa 15 xorriyadda iyo nabadgelyada qofnimada, yani qofkan inuu xor ahaado nabadgelyadiisii inuu nabadgelyo dareemo oo dhaawac loo geysanin la jir dilin la soo xirin xarbi sharci darra arrimahaas dhan lagu sameeyay waa arrin ay tahay in qofka muwaadinimadiisa karaamadiisa ku xiran tahay. haddii aadan cabsi dareemaysa markasta oo in lagu soo xiraad ka baqaysid oo qofkii ciidanka ka hor yimaado uu ku garaacayo oo kuwa kale ay ku qabanayaan oo dad kale oo awood kala sheeganaya ay ku xirayaan ku dilayaan, qofkaasi wuxuu dareemayaa nabadgelyo la'aan. waxaa laga yaabaa cabsidaasi inaysan gaarsiisnayn dil, haddii dil gaarsiisto xaqii nolosha ayaa khatar gelaya. hadda kan laakiin waa badbaadadii jirkiisa iyo qofnimadiisiiba waa wixii la xiriira jir dil iyo xarig iyo wixii la halmaado kuwaasna lama ogolo. marka hadda ayagoo xuquuq ahaan ah ay halkan ugu qoran yihiin si marka loo ilaaliyana dawladdu xeerar ay ka dejisaa. markii meelaha laga hadlayo xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa mamnuucaya in dadka iska soo xiro iyo wixii la halmaado. markii halkan la joogo ilmaha yararka ah ee uurku jirta ah ayaduna waa mamnuuc in la soo rido. uurku jirta in la soo rido oo hooyadii iska soo rido waa mamnuuc. abortionkii way ayaduna waa mamnuuc oo lama ogolo. caafimaadku wuxuu nabadgelyadii iyo badbaadadeedii haddii dhakhtar uu dhaho iskuma jiri karaan waxa noocaas ka kala qalayo. xorriyadda qodobka 16 wuxuu leeyahay xorriyadda abuuridda iyo ka mid noqoshada ururada, yani muwaadiniinta xaq u leh. dawladdu marka waxaa la diidayaa inay ka hor istaagto in dadku ay urur ku biiraan ay urur ka mid noqdaan. marka waa xaq uu qofku muwaadinka uu leeyahay inuu ka mid noqdo urur. marka dee ururada laga mid noqonayo iyo ururada mamnuuca ah iyo kuwaan mamnuuc ahayn iyo xeerar baa lagu nidaaminayaa, laakiin looma diidi karo, yani looma diidi karo oo xaq bay u leeyihiin. waad ku biri kartaa urur lagumana qasbi karo, haddii aadan rabinna waad ka joogi kartaa. yani ka dhex galo xeer yani hadda xuquuqaadka aan ka hadlayno ilaa iyo yani salaan marka aan u fiirino qaramada midoobay artikaladeeda waa 62 u dhawaad markano human rights markano amendment soo saartaa. يعني سيدي لبعض يعني دلوا البحوجة مية كجرتا ويعني ما وحس جود ما ملها واحد حياة مسحواي ودم البحوجة وكل دوين هذا ما سيدي ولا قبض صدان نظام حقوق أدنى هي وكسلني غير كذا. ومع سنتهاي حقوق إنسان كهر على مركز الجو هالشيء عالمي وفرض بدنا ويكتران دولتهنا كم قصبنا إن هالشيء سيدا تهي أول قاطع مع حالي دون كمان إن كل نول نهاي دولته وكلا نقن وكلا الدين وكلا مبادئ مركا أنت دولته هي حرة مركا وحي حركة هالشيء عالمي ها الدين تدي نقن كذا وفقيا إن يكبرت مركا والو كلا دونان كلام لها قاركود dawladihii isku nooc ah oo isku diin ah oo isku dhaqan ah oo iska agdhow dhow inta badan way siyaalayaan kuwa kale way kala fogaanayaan. Soomaaliya waa dal muslimiin ah, dawladaha muslimiin inta badan meel ay ka taxafudaan ama ay ka gaabsadaan heshiisyada caalamiga way jiraan. hadda waxaan focus saaraynaa xuquuqda muwaadinka uu leeyahay heer international oo heer caalami ah heerka dakhliga. marka xuquuqdeennan
waxa asal u ah dastuurkaas asal u ah inagoo ilaalinayna heshiisyada caalamiga ah qaybta ka nahay marka sidoo kale qofku qodob waxa jira xorriyadda diinta iyo aqeedada hadda inaga dastuurkeena markuu qodobka 17 uu ka hadlayo xorriyadda diinta iyo aqeedada ma dhahayo diin qof kasta diintu rabo ku beeri karaa wuxuu ku cadeeyay diin aan islaam ahayn laguma faafin karo dalka yani qodobkaasi waa qodob ku qoran dastuurka waxa la diidayaa dad kale intay yimaadaan diimo kale ay faafiyaan baa la diidayaa sidoo kale qodobka 8 wuxuu ka hadlayaa xaqa xorriyadda ra'yiga iyo fikirka yani muwaadiniintu waa dad bini aadam qofka bini aadamka haduu leeyahay fikir iyo wuxuu leeyahay ra'yi buu leeyahay marka haddii ay dawladdu soo istaagto dhahdo lama fikri karo ra'yigaada ma sheegan kartid ama dawladdii dad aan ahayn ay dadku u diidaan inay hadlaan oo fikirkooda dhiibtaan waxa lagu tuntay xaqoodii xorriyadda qodobka 18 ka hadlayay marka hadda waa mabda inta badan dastuurku mabaadi buu dhigayaa oo hadda qofkii xorriyadiisa lagu hor istaago ciqaabtii lagu xukumi lahaa meesha ma taal laakiin xeerar baa faafinaya haddii marka la hadlayo xorriyadda ra'yiga xeerka saxaafadda yaala xeerka saxaafadda inta la ilaalinayo xeerka saxaafadda marka qofku uu xeerkaasi uusan jebinaynin xeerarka kalena uusan meel uga dhacayn xuquuq islaameedna uusan ku gafaynin xor buu u yahay inuu ra'yigiisa iyo fikirkiisa u dhiibto haddii uu marka uu khalad galana dawladda qaybta fulinta iskama soo xiraysa oo godna la iskama ridaaye waxaa la marsiinayaa habkii raaci sharci baa la marsiinayaa halkaas ay xeer ilaalintii iyo garsoorkii bay aadaysaa sidoo kale wuxuu xaq u leeyahay qofka muwaadinka xurmada hoygiisa yani qof kasta oo bini aadam xuquuq badan buu leeyahay meeshaad ku hooyanayso waa meel adiga ku gaar ah marka waxyaabaha ku gaarka ahna dee adiga maamusha waxaa la diidayaa in gurigaagii la iska soo galo dad ay iska soo dhacaan xilli dhaxal iska yimaado oo waxaas dhan lama ogolo yani qofkan gurigiisaas lama geliyo haddii aan asaga idan laga haysanin haddii la rabo in asaga lasoo xiro ama gurigiisa la baarana waa in waraaq garsoore ka soo baxday oo qof wata uu saas u soo galo marka qofkana loo akhriyaa marka waraaqadaas lagu galayo iyo waxa loo haysta iyo waxa loo soo galayo ay ku caddahay oo garsoor laga soo fasax qaaday ayaduna waqti bay leedahay inta maalinkii ah habeen wax xataa waraaq wata oo garsoor waraaq wata xataa waxa la nimaha iska laaftay meesha ana ka taliye sida asalka waa sidaas hadduusan markaasi fal dee arrimo gaar ah aysan jirin oo meesha fal dambiyeed meesha uusan markaasi uusan ka dhacayninba ama qof laga baqay inuu u baxsado dhuntii waxaan noocaas kale dhammaan waxaas waxay ku faahfaahsan yihiin xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ayaa faahfaahinaya sida guriga loo gali karay iyo sida qof laga soo qaban karay iyo wax aynkaas oo kale marka taasna waa inay muwaadinku waa inuu ogaadaa in uu xaq u leeyahay hoygiisu inuu xurmad gaar ah u leeyahay oo meel iska bannaan oo iska furan oo xilliga la rabo la soo gali karaa aan ahayn ustaad waxay numaraysay xuquuqaadka privacy iyo lahaanshaha qofkinaan arrimihiisa gaarka la soo faragelin waana midda oo muujinaysa qofku inuu xor yahay yani hadduu qofku xor haddii arrimihiisa gaarka u ahaa la soo faragelinayo gurigiisa marka la rabo soo geliya asagiisa la rabo laga yeelayo qofkaasi xorriyad ma yeelanayo qof wuxuu noqonayaa karaamadiisii meel looga dhacay xuquuqdu way farbadan yihiin waxaan isdul taagaynaa kuwa ugu muuqda ama si gaar aan u saarayna ahmiyad gaar u leh qof kasta muwaadinana waa laga rabaa inuu markastaba uu mutaa akhriyo oo uu la socdo xuquuqdiisa uu garanayo xuquuqdaas waxaa ka mid ah qaarkood xuquuqda siyaasiga ah qofka muwaadinka xaq siyaasi ah buu leeyahay inta badan haddii siyaasi la dhaho waa siyaasadda waa isdoorasho iyo ku biiris axzaab iyo ka mid noqosho iyo madax noqosho iyo wixii la halmaala iyo kulamo la xiriiro oo lagaga cabanayo markaasi ama lagu soo gudbinayo wax ay rabitaan ay bulshadu ay rabaan qodobka 20aad waa muhiim wuxuu ka hadlayaa xaqa kulanka ama xorriyadda kulanka hadba si loo dhigo marna xaq baa la oran karaa marna xorriyad baa la oran karaa waa laba eray oo labadaba isku mid ah loo isticmaalo yani dadka muwaadiniinta waxay u leeyihiin inay kulmaan kulamo qabsadaan xaflado qabsadaan munaasabaad qabsadaan sida uu qodobkaas 20aad ku caddeeyay sidoo kale waxay xaq u leeyihiin banaanbaxyo inay dhigaan banaanbaxyo taageera kuwa cabasho ku muujinayaan labadaba cabasho wadareed inay muujiyaan waa wax ay xaq u leeyihiin marka
qodobkaas wuxuu cadeynayaa faqradiisa koowaad marka uu dhaho qofku xaq u leeyahay kulamo iyo wixii la halmaalay ee bannaanbaxyo wuxuu raacinayaa iyada oo aan ogolaansho loo baahnayn yani fasax ma loo baahno yani markaad kulan qabsanayso ama aad bannaanbax samaynayso inaad fasax soo hesho lama baahno saasuu ugu cad yahay dastuurku marka dowladaha qaarkood saas oguma cadda qofku xaq u leeyahay baa la yidhahdaa kulan iyo bannaanbax iyo muwaadiniinta saas xaq u leeyihiin markaas kale dowladdu waxay xaq u yeelanaysaa in ay fasax ku xirto maadaama aan la diidin fasax xirista iyo waxay la halmaala markan laakiin waxba si cad baa loogu mamnuucay inaan fasax loo baahnayn marka fasaxan loo baahnayn kale dee iska yaacda ma waxaa la sameeyaa ogeysiin يعني waxaa la ogeysiyaa jihooyinkii dawladda in hadhow amnigii iyo waxaas dawladda mas'uulka ah si marka amni darri iyo khalal iyo xuquuq aan loogu tumanin waa la ogeysiyaa ogeysiintaas bay qaadanayaan marka dawladdu meeshii way imaanaysaa amnigeeda sugaysaa way la soconaysaa xuquuqdaas waxaa ka mid ah xaqa isu socodka inta badan hadda Soomaalidu waa caadi culays kuma hayo way safri karaan way soo gali karaan way bixi karaan meelahaas marka laga hadlayo dawladda la rabaa inay dadku faraha uga qaado qof magaalada rabta u guuri dibadda aadi waa soo laaban waa bixi in marka waxa la diidayaa aan lagu xanibin oo safarka laga xanibin dal ay laga joojinin hadii maxkamadda ku xukunto wax aan kaas kala xabsi guriyo taas waa case gaar ah qodobka 22aad wuxuu leeyahay xaqqa ka qaybgalka siyaasadda qofku inuu siyaasadda ka qayb galo waa xaq muhiim ah dawladdu shacabka iska leh marka shacabku maadaama dawladdu leeyihiin ayaga maamulkoodina ayaga noqonaya waxaa la diidayaa in koox gaar ah ama dad gaar ah ay siyaasaddii isla haysiiyaan Soomaaliya kama jirto hadda oo meel fiican bay maraysaa dad afgembi lagu qabsadayna ma nihin sidoo kale ma nihin boqortooyooyin dhisan oo dad gaar ah ay leeyihiin ma nihin marka qofku xaq u leeyahay inuu xisbi ku biiro inuu xisbigaas u soo tartamo inuu madaxweyne isku rashaxo shuruudihi duu baxsho waxa kale xildhibaan noqdo siyaasadda ku biiro dalkiisa maamulkiisa uu qayb ka ahaado marka waa xuquuqda ugu muhiimsan oo muwaadiniinta la rabo inay ku fara adeegaan oo dadka inta badan dad waxa iska jira iska jecel inay xuquuqda siyaasadda ee shacabka leeyihiin oo dhan ay la wareegaan oo dalka ay ka qabsadaan marka inaga hadda way noo toosan tahay wali si la rabeen u hirgelin oo 4.5 iyo oday dhaqameed wax soo xulay iyo 11 qof iyo 100 qof iyo wax noocaas ah dadkii soo dardooranay wax la xildhibaanadii ilaa inta ay laga guuriyo waxaas oo dhan oo shacabku ay qof iyo cod u codeynayaan waa halkaas yoolku yani xaq leeyahay ka qaybgalka siyaasadda waa in ugu dambeys qof iyo cod la gaara oo qofku uu doorto wax doorto lana doorto in halkaas laga gaarayo xaqaasi wali naaqis buu ahaanaya dastuurku ku cad yahay hirgelintiisii ayaa laga rabaa marka shacabku waxa la rabaa inay halkaas ku sii dhaganaadaan oo aysan marnaba ka shaqo ka faran qaybtaas markii laga tago xuquuqdu way farbaantay qayb arrimo bulsho ah jira marka qayb arrimo bulsho ayaa jira arrimo bulsho markii la joogo shaqadii baa imaanaysa qofka shaqo u baahan yahay qoys inuu samaysto u baahan yahay caruur iyo waalid baa imaanaya xuquuq bay wada yeelanayaan dhamaantood shaqada markii la joogo qofku xaq u leeyahay shaqada uu rabo inuu ka shaqeeyo inuu xiriirka uu shaqadiisa la leeyahay dadkiisa madaxda ah inuu ay cadaalad noqoto in aan la faquuqin intuu shaqada u joogo in aanan looga faa'iideysanin baahida yani marmarka qaarkood waxaa la rabaa in qofka shaqada uu qabanayo mushaar u dhigma inuu helo meelaha qaarkood marka waxa looga faa'iideystaa qofka uu baahan yahay waxba ma haysto marka haddii $30 la sii xataa uu u baahan yahay haddii $100 la sii uu u baahan yahay shaqada uu qabanay waxa laga yaabaa in $1,000 ay u dhiganto laakiin baahida inta lagu faa'iideystaa waxa la leeyahay waxaan ku siinaynaa $100 ama $50 haddii uu dhaho ma rabana dad badan oo baahan baa jira marka qofkii shaqada bixinaya qof ma weynayo dadku way baahan yihiin marka in baahidaas iyo aan laga faa'iideysanin inta badan xeerarka shaqada iyo shaqaalaha loo sameeyaa labada dhinac baa hadii qof dad u shaqeynaya xeerka shaqaalaha rayidka ah baa ayaa xadidaya xuquuqdooda iyo waajibaadkooda hadii qof shirkadka khaaska iyo hay'adaha khaaska u shaqeynayna waxa xadidaya xeerka shaqaalaha marka halkaas ku cad yihiin inkastoo laga yaabo mushaarka ugu yar ee la qaadanay aysan caddayn oo la xadidin dawladdu waxay sameeyaan mushaarka ugu yar ee qof shaqeeya la siinayo dawladda xadidaysa
waxaa leeyahay qof shaqeeya intaas mushaar ka yar lama siin karo marka qiimahaasna waxaa lagu jaangoynaya qof intuu ku noolaan karo waa meesha la rabo inay shaqaalaha Soomaaliyeed ay higsadaan in mushaarka ugu yar qof la bixin karo loo xadido waa higsi ay tahay in la sameeyo marka ururada dadka shaqaalahana ururo way samaysan karaan ururka shaqaalaha ku beeri karaa wax way samaysan karaan sidoo kale haddii aan dhan kale usoo gudubno yani xuquuq waxaa jirta dowladdu ay tahay inay ay ayadu dhaliso ayada abuurtaha dadku waxay u baahan yihiin daryeelka qoyska qodobka 28 ba ka hadlay daryeelka qoyska marka qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu uu helo daryeelka u baahnaa daryeelka hooyada iyo dhallaanka in la sameeyo yani hooyooyinka dhallaanka meelaha nugul weeyaan marka in caafimaadkooda ay diyaar u yihiin ay xanaanintooda u yihiin waxbarasho ay heli karaan ubadku waxay ku leeyihiin waalidkooda waxay ku leeyihiin barbaarin waalidku ilmihiisa wuxuu ku leeyahay xanaanayn hadhow markii ay u baahdaan waxaas oo dhan waxay soo hosgalayaan qaybtaasi daryeelka carruurta si gaar ah ayaa qodob looga dhigay qodobka 29aad carruurta si gaar ah ayaa loo xusay ilaa 8 faqro weeyaan halka waxaad garanaysaa ahmiyadda ay carruurtu ay leeyihiin qof kasta wuxuu xaq u leeyahay oo ilmo ah markuu dhalanayo in magac suuban loo sameeyo qodob caadi waa xuquuqda muwaadinku uu leeyahay magac suuban baa asal ah magac kasta la iska bixinay waalid asaga ka jecel ilmihiisa waalid asaga ka jecel ilmihiisa marka magac fiican inuu bixiyaan waxa laga yaabaa waalidiinta qaarkood inay magacyada qalloociyaan ilmaha waxay xaq u leeyihiin jinsiyad yani marka dhashaan bay dhalasho ay helaan ay xaq u leeyihiin ilmuhu waxay xaq u leeyihiin in laga ilaaliyo dhaqan xumo dayacaad xadgudub liiditaan waxaas oo dhan laga ilaaliyo ay xaq u leeyihiin sidoo kale carruurtu waxay xaq u leeyihiin in laga ilaaliyo shaqooyinka culus yani shaqooyin oo koritaankooda dhib u keenaya in aanan loo dirin inta badan waxaa laga yaabaa in ilmo yar oo qoysas tabar yar ilmahoodii shaqo u diraan oo sidaas u shaqeynayaan marka ilmaha waxaa la diidayaa shaqooyinka kuwooda soo yara koree shaqo si u gaara shaqo aan koritaankiisa iyo dee waxbarashadiisa iyo aan kor istaagaynin in loo sameeyo xeerka shaqaalaha ayaa inta badan wixii xadidaya da'da shaqooyin la sameyn karayo waxyaalaha aan la ogoleyn iyo wax adag iyo waxbarashada dowladda la rabaa inay ay sameyso inta badan waxaa xaq u leeyihiin muwaadiniintu inay helaan waxbarasho free ah ilaa heer dugsi saro laga soo gaarayo hadda dee inuu dowladdeenu weli halkaas maysan wada gaarin waxbarashadii waa iska lacag laakiin waxaa la rabaa in muwaadiniinta oo dhan ay helaan waxbarasho free ah oo ilaa dugsi sare ah ها waxbarasho fira inay helaan u leeyahay xaq u leeyahay yani dawladdu waxay kobcinaysaa waxbarashada sare maxadiyada aan samadaris marka xaq waxay u leeyihiin dadku inay waxbarasho helaan marka waxbarashadaasi dee waa hiigsi fog weeyaan waxaa la rabaa qof kasta oo gaaray daadi waxbarasho in waxbarasho u dhaqaaqo dadkii iska bixin kara wax lacag loo iska bixinaya kuwa kale in lacag ku helaan dhaqanka iyo afka bay dawladdu ka saarantay dawladdu waxa waajib saaran yahay dhaqanka iyo afka dawladda ilaalinaysa dhaqanku waa hantidaasi marka waxaa laga ilaalinayaa dhaqanka wixii xun waa laga saaray laakiin wixii dhaqan bulshadu leedahay in la ilaaliyo waa hanti ay tahay waajib dawladda ka saaran afkeedu waa saas waa in loo ilaaliyaa afka haddaan la ilaalin wuu dabar go'ayaa dhaqanku hadduu dhumana ummad kala noqonayna yani aan Soomaali ahayn Soomaalidana waa dhaqankaas iyo dadkaas isku jira weyn iyo afka waxaan jeclahay asxaabta kale ee bahda ardayda ila fadhida inaan fursada wadaajiyo oo aan ku hormaro Su'aad Xuseen Muuse Su'aad soo dhawow ودبهي مادام أكهات لنا موضوع برنامج أكهات لنا هي موضوع عيسى حقوق المواطنك واجباتك أديات وحاليا هي مجرى كرتا مواطنك هدو واجباتك قار وجذوة إنه حقوق ديس سعاد way mahadsan tahay waa laba inta badan si isugu xiran oo waxa la yiraahdaa qofka haduu حقوق leeyahay waajibaad ba saaran hadii waajibaad la saarayana xuquuq buu yeelanayaa waxaa jirta dad kooban oo yar oo laga yaabo inay xuquuq bas leeyihiin ilmaha yarka iyo
dadka waaweyn ee aanan caqligooda uusan dhammaystirnayn iyo kuwaasi xuquuq kaliya leeyihiin oo hadda waajibaad mukallaf ma aha laakiin intii qofka hadduu mukallaf noqdo waajibaadkaas ayuu ka soo baxaya waxaa laga yaabaa xuquuqda qaarkood in waajib markaas ku aadan inay si loo heli waayo laakiin xaq kastaba waajib buu leeyahay tusaale ahaan haddii xaqaadii nolosha lagu ilaalinayo haddii dee aad keento ama aad gacmaha ku sababato wax xaqaagii halis gelinaya oo xaqaasi aad ku weynayso tusaale ahaan markii la leeyahay xaqa nolosha waa xaq adigu aad leedahay laakiin waxaa waajib ku saaran inaadan dembi gelin inaadan dilin inaadan wax caynkaas kala samaynin waajib ku saaran weeyaan haddii marka waajibkaadii aad ka soo gaabiso oo aad dad disho dee qisaas baa imaanaysa qisaastaasi waxaad ku weynaysaa xaqaadii nolosha ayaad ku weynaysaa muwaadin baa tahay canshuur bixin iyo waxaa ku saaran canshuurtaasi muwaadiniinta laga qaadayo horumarintooda lagaga shaqeeyaa haddii marka canshuurihii wixii ay bixin waayaan waxaa laga yaabaa marka khadamaadkii iyo waajibaadkii dhanka dowladda ka saarnaa inay ay ka gaabiso marka markii adiga xuquuqda lagu ilaalinayo dowladda waajibaad baa saaran marka waajibaadkaasi waxay fulmayaan haddii muwaadiniintu ay xuquuqdoodii ay ka soo baxaan marka si guud markii la dhaho waajibaadka iyo xuquuqdu way iska kala dhashaan waa lacagta labadooda dhinac weeyaan marka xuquuqda fara badan waajibaadku way kooban yihiin inta badan hatta qodobka waajibaadka hal qodob baa laga hadlay waajibaadka muwaadinka xuquuqda fara badan marka xuquuqdaasi fara badan kuwa qaarkood adiga kaligaa baa iska leh oo dowladdu xataa kama baahna inay wax ay ka hesho bedel ka hesho marka xaq kastaba waajib baa ka dhalanaya waa sax dad xaq uusan waajib ka dhalanaynin mishta xuquuqda iyo waajibaadku kala dhalanayaan oo qodobka 42 markii laga hadlayay sida diinta islaamku qabto cadaaladda waxay ku jirtaa isu dheelitirnaanta xuquuqda iyo waajibaadka qofka inuu xuquuq yeesho waxa marka kasta oo leedahay waajib baa ka dhalanaya haddaad leedahay in lagu ilaaliyo dee noloshaada iyo hantidaada iyo wax noocaas oo kale adiguna dee hantida dad kale ku xadgudbin dee haddaad dhib geysato hantidaadii baad magdhow ka bixinaysaa marka laguma ilaalinayo marka qofku inuu waajibaadkiisii uu ilaashado si xuquuqdiisa uu helo waa sidaas sida su-aasheeda aan ka fahmnay yani muwaadinku yani wax uu maaragtay xuquuqaad uu lumin karaa ma jiraan haddii maaragtay mas-uuliyaadka saaran uu gudan waayo laakiin yani maadaama xuquuqaadku ay badan yihiin mas-uuliyaadkuna kooban yihiin yani wax la iska horkeeni karo yani oo laleeyahay haddii mas-uuliyadda aad gudan weyso yani waxaad weynaysaa xuquuqaadkaadii yani ma jirto waxaa jirta magta xuquuq qofka bini aadamnimadiisa uu ku leeyahay marka qofku intuu xaqiisa uu ka soo baxayo waajibaadkiisa soo baxay xuquuqdiisa uu helaya marka laakiin si kasta looma dhigi karo si iska furan looma dhigi karo qofka hadduu waajibaadkii uu ka soo bixi waayo xuquuqdiisa uu weynayo xuquuqaada weynaynin baa markastaba iska jirta aduu haddaad geysato wax sharci darro ah waxaad mudanaysaa ciqaab ay ahayd marka hore inaanan lagu ciqaabin sidaas asaa loo dhigayaa qofka hadduu sharcigii jabiyey oo waajibaad sharcigu farayay oo inuu sidaas u sameeyo ahayd hadduu uu jabiyo oo waajibkaas uu jabiyo wuxuu mudanayaa ciqaab ay ahayd marka hore inuusan mudanin oo laga yaabo xaqiisa inay xadido waxaa laga yaabaa qofka in xabsi la geliyo haddii xabsi lagu geliyo xaqaadii isku socodka iyo dee xornimadaadii baad weynaysaa waxa sababayna waa waajib aad ka gaabaysay marka waajib haddaad ka gaabiso waxaa ka dhalanaysa ciqaab baa ka dhalanaysa ciqaabtaasi waxay saameynaysaa xaq adigu aad lahayd oo ay ahayd marka horeba inaan lagu ay ma la oran karaa dadka maaragtay xuquuqda siyaasiga markaynu ka hadlayno dadkan political asylum seekers la yiraahdo ee يعني magangeliyada ku noqdo wadamada kale iyagoo siyaasadii wadankooda ka jirtay intay mucaaradeen ama ay saluugeen wadamadii maartay dawladii talinaya xogaa ay wadamadaas ka soo eriyeen ama soo musaafiriyeen nimankaas miyaan la oran karin sida dad badan bay u lumiyeen xuquuqdii wadankaas oo yani waxa laga qaarkood xaq ku dhintaan ama wadamo kale ka qaataan dhalashooyin wallaahi dadka oo magangeliyada siyaasadeed dalbada xuquuq ay dhumiyaan ma jirto inta badan qofku muxuu magangeliyo siyaasadeed u dalbanayaa dalkiisii buu xorriyad ka waayay waas markii leeyahay dadkan magangeliyo siyaasadeed baa la siiyay oo dalkiisii buu ka soo cararay oo dal kala tagay sida asalka waxa weeyaan dalkii aan laga cararin oo qofku inta badan haddii dawladii iyo talada xisbiga talada hayay aad mucaaradid waxaa la rabaa inaad dhib aysan ku soo wajihin marka dadkaasi inta badan dad hadda aragtid banaan u aaday arrimo siyaasadeed gudaha kaga carareen waa dad xuquuqdoodii lagu tuntay inta badan saasa iyo asalka
marka waxaa la rabaa qofka hadduu si kasta mucaarad u yahay dalkiisa inuu joogo oo aan la xiraynin oo xal uu sameynayna markuu khalad iyo shuruucdii dalka uu ka galayna markaas waa la ciqaabaya marka dadka oo dambiyada galana waa la isku soo celiyaa dadka aan la soo celin waa kuwa arrimo siyaasadeed iyo fikirkiisa siyaasiga waxaas la xiriira marka qofku hadduu afkaartiisa uu jeedinayo kuwaasi waa bab gaar ah marka laga hadlayo arrimaha magangeliyada siyaasadeed iyo mashruuc gaar oo ka duwan qof waajib uu ka gaabiyay ma ku imaato waxaan jeclahay inaan markaan soo dhaweeyo asxaabta yani barnaamijka martida noogu ah waxay hor fadhiyay saaxiibkii luqmaan soo dhawow su-aal wixii aad ka qabto ciwaanka waad jeceshaa inaad weydiiso ustaad بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما سنتهي زكريا أستاذ شيلله أستاذك سوجيدنا حقوق ذا واجباتك مواطنك وموضوع عاد مهم أنت بدن دتك وحكي كعوضان إن حقوق ذا كما قنتهاي حقوق سو أستاذك نوشة حقوق قناة دي لا أركان وحواي واجباتك جالس كجرا sidii haddaan gudaha usii galay su-aashiida sidaa wada ognahay dowlad kasta ama waddan kasta wuxuu qarashka ugu badan iyo qiimaha ugu badan ku bixiyaa sababtoo dowlad markii la dhahayo waxaa loo asaasay waxaa waaye inay ilaaliso xuquuqiyaad fara badan way dadka xuquuqiyaadkooda ay ka mid yihiin sida hadduu ustaadku u sheegay dhaqdhaqaaqa political rightska iyo waxyaabo badan oo hadeertaan oo social arrimaha bulshada la xiriirta su-aashada marka waxaa waaye iyadoo waxaasoo qarasha iyo waqtiga la geliyey sidii loogu talagalay xuquuqiyaadka in loo ilaaliyo ama intii heerkii loogu talagalay ma soo gaarsiiyeen dowladaha markii adduunyada loo fiiriyo markii dalkanada ama localkana gudaha loo fiiriyana xuquuqiyaadka intaas waajibaadka xuquuqiyaadka lagu lahay dowladda ma ka heleen dadka shacabka ahay اوكي و ما سنتهاي وسؤال مدن اوكي سؤال مدن ويان ان السويديو ورن حقوق بدن waxaad moodaa dawladuhu way kala duwan yihiin oo dawladda Soomaaliya oo kala talahan oo si u tabar yar waxa laga yaabaa in waxyaabo badan ay ka gaabisay waxyaabo badanna ay noo yaalaan dawlado badan baynu ka fiicanahay markii la joogo xorriyadka qofka xaq inuu leeyahay inuu socdo inuu gurigiisa iska joogo in aan siyaasadda ka hadli karo afkaartiisa gudbisan karo ra'yiis wixii xuquuqda siyaasiga la xiriirta oo dhan inta badan waa kuwa ilaashan weeyaan oo hadda dad la caburinayna ma nihin dad waa laga yaabaa mar qaarkood in ay kaysas dhacdhacaan dad mucaarada hoose loogu way jirta waa laga yaabaa laakiin inta badan dad arrimaha xuquuqda siyaasiga markii la joogo way u diyaarsan tahay waxaa laga yaabaa dhanka markii la joogo nabadgelyada iyo qofkii dadkii inay qarax la kulmayaan iyo dhibaatooyin dad ay dhacayaan iyo moobiladooda hantooda laga dhacayo dad la dilay kuwaas wali waa wax had iyo kow u sii dhiman weeyaan xuquuqda kale arrimaha bulshadana waxbarashadii iyo daryeelkii waa laga yaabaa inay si u hooseeyaan laakiin dawladuhu hadba horumarkeeda ay ku xiran tahay fursad kale aan siiyo walaashay Quraysh Maxamed oo ag fadhisa Quraysh ay soo dhawow waan dhawahay waan ku faraxsanahay barnaamijkan ka qayb qaato aad ay u maasanta ustaad su-aasheeda waxa ay tahay xuquuqda ama copyright-ka ama lahaanshaha ma ka mid tahay dastuurka ama hadda ma ka jirtaa Soomaaliya waa maasan tahay su'aal ay tahay in la isweydiiyo Soomaaliya hadda xuquuq copyright-is iyo sharciyo ilaalinaya ma ka jiraan waa wax dhiman yani oo hadda iyo kadib ay tahay in xeerar laga soo saaro iyo sidii loo ilaalin lahaa la sameeyo de mabaadi guud oo qaanuun ah oo lagu ilaaliyo way iska jiraysaa laakiin xeer magacaas leh iyo loo habeenayo waa wax wali dhiman laakiin mabaadiida qaanuunka arintaas lagu ilaalinayay way jirtaayo oo hadda hadii xuquuq caynkaas ka lagu tunto garsooraha waxaa saaran waajib ah in dadkaasi uu kala xukmiyo sidii soo ilaalinaya masaadirta qaanuunka soo maraya ayaa loo ilaalinaya laakiin wali xeerar caynkaas kala faahfaahinaya arrimaha copyright-ka la xiriira lahaanshiyaha afkaarta iyo wixii la xiriira dadku bani aadamka ay curiyaan waa in loo ilaaliyo oo hadda in waana baahida ugu xoog badan ee ay dareemayaan dadka wax curiya afkaartooda oo laga yaabo inay suuqa ku arkaan ayuu dad kale ay samaysanayaan marka waa wax dhiman oo raba dawladda inay hadda xeerar soo socda ay ka soo saarto dhegeystayaal waxaad la socotaan barnaamijka tusmada sharciga oo idinkaga imaanaya idaacadda Himilo daqiiqadii ugu dambeeyna waynu maraynaa ustaad maanta waxaan ku soo hadlaynay xuquuqaadka muwaadinka haddii aan daqiiqada kooban ku siiyo isdul taagto waajibaadka lagu leeyahay muwaadinka
waajibaadku muwaadinku way iska kooban yihiin waa qof muwaadin daacada waa inuu noqdaa muwaadin waxtar leh waa inuu noqdaa qof ka shaqeeya wanaagga waa inuu yahay qof mas-uuliyadiisii gudanaya waa inuu yahay qof dhiirigelinaya midnimada qaranka waa inuu yahay qof aqoon u leh dastuurka iyo xuquuqdiisa waa inuu yahay qof ku dadaalaya codbixinta xilliyada doorasho markii la gaaro cod bixinaya waa inuu noqdaa canshuur bixiye waa inuu noqdaa waa inuu difaaca dalkiisa waa qodobo saas kale iskugu soo aruursan oo ku soo arooraysa muwaadin saalax oo wanaagsan inaad noqotid ismiiqaanka ay gacan hatinaya waqtigii barnaamijka loogu talagalo intaa nooga eeg waad ku mahadsantihiin maqalka barnaamijka iyo dhegeysigiisa sidoo kale aan u mahad celiyo asxaabta barnaamijka kasoo qayb gashay oo ay sida saaxiibkii luqmaan iyo sucaad xuseen iyo quraysh maxamed mahad dhammaanteen eeba ka sokowaan siiyo ustaad abdiqaadir shaliilah oo runtii ciwaanka xuquuqda muwaadinka iyo waajibaadkiisa aad nooga haqabtiray waa dhegeystayaal barnaamijkii tusmada sharciga oo aan idiin jeedinayay anigoo asgariye xasan maxmedne intaa ayaan jeclahay inaan kusoo afmeero ma gurxamo libaaxii dadku gacashanaya garboodkay cayaaraan shabeelkii wax